السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkan waxaan ku duubayaa muuqaal kooban. muuqaalkaas oo sharxaya sidee u eegi karaa xawaaraha internetka aan isticmaalayo. mobilna waad ka eegi kartaa, computerna waad ka eegi kartaa, laakiin tijaabada casharka waxaan ku sameynaynaa computer. sidaa darteed waxaa muhiim ah inaad haysato internet. kadib markaad internetka laptopkaaga kusoo xidho ama desktop noocu yahay computerkaagu, waxaad soo furaysaa googlaha. sidoo kale browserka xagga sare search into address barka ee qaybtan letterkiisa waad iman kartaa, waad ku qori kartaa. marka waxaan rabaa in aan halkan search into googlaha ku qoro test speed ayaa ku dhufanaysaa, kadib enter ayaad siinaysaa. halkan waxaad arkaysaan website kala duwan. hadda kan fast.com ayaa la yidhahdaa, kan waxaa la yidhahdaa speedtest.net. marka labadaba waad eegi kartaa. inta badan waxaa wanaagsan inaad isticmaashaan fast.com-ka, laakiin waxaan oo dhan waa wada websites iyo serverro aad ka eegi kartid wirelesska isticmaalaysid ama internetka isticmaalaysid xawaarihiisa. waad u isticmaali kartaa bundle-ka ama lacagtan ku shubashada package-ka ee daatada ay dadku qaar yidhaahdaan ee mobilada. Wi-Fi-gana waa u isticmaali kartaan ama wirelesska, iyo sidoo kale network-ga ethernet-ka. marka waa nooc walba oo communication network ah internet speedkiisa haddaad rabtid inaad ogaatid xawaaraha waad samayn kartaa. wuxuu muhiim u yahay marka qofku uu soo iibsado xidhmo ama uu soo xidho internet xafiis ama guri, in lacagta laga qaadayo xawaaraha internetka la siiyey shirkadaha ISP-ga internet service providersku ay siiyeen shirkadaha laisku yidhaahdo adeeg bixiyaasha internetka. marka fast.com-ka waa geli karaa, kana waan geli karaa. kan sare ayaan linkii koowaad ku dhufanayaa. marka si toosa wuxuu usoo gelayaa daaqada tijaabada oo meel kale kula geli maayo. tiradan uu wado marka waa xawaaraha internetka oo waxaa lagu cabiraa network waa cabirkii bandwidth-ka mbps oo ah megabits per second, oo ilbiriqsigii inta megabit uu rogayo ama uu goynayo. marka hadda internetkaygan xawaarihiisu waa 17 megabits per second weeyaan. marka si loo eego aad buu u fiican yahay. waxaa jirta marka sidee lagu ogaan karaa internetkayga markaan tirada noocan arko ka gaabinaya iyo ka dheeraynaya. haddii internetkaaga xawaarihiisu u dhexeeyo 2 ilaa 3 oo 3 ilaa wixii ka hooseeya ah, waxay yidhahdaan waa lowest weeyaan, lowest. marka waa xawaaraha ugu hooseeya weeyaan tabcaanka ama daciifka. marka waxaa la rabaa ugu yaraan inta ugu badan 50-70 qaar baa gaadha, kuwana way ka bataan, laakiin waa kuwa aadka u sarreeya. fiber optic noocooda qaaliga weeyaan. laakiin haddii uu gaadho adigu 10 waxna waa ku download garaysan kartaa si fast, waana ku upload garayn kartaa, qof oo ugu diri kartaa ama file waa ku dirsan kartaa. sidaa darteed xawaaraha internetku hadda 17 hadduu yahay aad buu u fiican yahay, wax badan wuu ku soo dejin karaa. marka mar labaad haddaan ku celiyo aan rabo inaan mar dambe eego xawaaraha, waxaad aragtaan inkaygu 17 buu taagan yahay, 17 megabit per second. marka uu aad buu u fiican yahay faylar marka soo download garaysanayo. marka sidaas ayaa loo eegi karaa xawaaraha. kan haddaadan ka eegin xitaa aad dib uga noqotid linkigan kale ee ah speed testiga, waa website markaad ku qorto test speed xawaaraha tijaabi kusoo baxaya weeye labaduba. kan oo kale isagu toos uma bilaabo test speedka oo ah speed testiga. wuxuu u baahan yahay inaad ku dhufato saad halkan ka arkaysaan go, isaga waa amraysaa marka uu diyaarka yahay. inta badan kanaa detailkiisu aad u fiican yahay, si sharaxan oo faahfaahsan u sharxaya. wuxuuna kuu sheegayaa xawaarihii buu ku kala saaraya. hadda kii hore oo kale 17 megabit buu yiri weeye internetkaaga oo dhami xawaarihiisu 17 megabits. kan laakiin wuxuu kuu sheegayaa downloadka markaad wax soo download garaysanaysid xawaaraha downloadkaaga inta megabit uu yahay iyo marka upload garaynaysid. marka mar adaa upload garaynaya ama waad diraysaa ama meel baad saaraysaa oo waad gelinaysaa internetkaad gelinaysaa, marna waad soo roganaysaa. hadda markaan fail soo roganayo xawaaraha internetkaygu wuxuu wax ku soo rogayaa ilbiriqsigii 15 megabits per second ku soo rogayaa. marka aan anigu qof u dirayo, aan upload sameynayo, aan internet gelinayo ama YouTube ama meel kale ha noqdo, xawaarihiisuna waa 0.63 weeyaan, inoo kala saaray. laakiin kii hore duuduub 17kii buu isugu keen dara. kan 17kii inoo kala qaaday. 17kaa 15.35 wuxuu yahay download. marka waxaa soo download galinaysa xawaarihiisu waa inta. sidoo kale uploadkii halkan kaaga sheegay. internetkan xawaarihiisa sidaas fudud ayaa loo tijaabiyaa. muuqaalka ku xiga intaan ka gaarayo waa Ibrahim oo idinkaga tegay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.